Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wuxuu soo fariistay asoo laga dhex hadlayo haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka noo saara, like-ta, haddaan kusii socdo. Xamse Cabdi Barre waa ninkii ogolaaday Ra'iisul Wasaarnimadii uu reerdhan u metelay in awoodda laga qaado asaga lagala wareego awooddii oo xilligeedu doono la ceelin karo awooddiina uu la wareego Xasan. Hadaladiisa hadda uu ku hadlay waxaa ka mid ah sida tan: dhab heshiisiinta oo taabagasha waxay bulshadeena u horseedi kartaa nabad ku wada noolaansho iyo xasilooni waarta si is-aaminaad iyo isdhexgal bulsho. dhaqanka Soomaaliyeed ma dhaqanka ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku suntan yahay u geed fariisiga iyo gorfaynta dadaalada nabadeed iyo xalka gaarista colaadaha bulshada dhexdeeda ah, waxaana astaan u ah aan wada hadalno waa aan heshiino. sidoo kale waxay leeyihiin xeerar dhaqameedyo isugu jira habraaca naadinta nabadda, xalinta ama dhayda wixii dhibaato ah ee kala gaaray dadka dirirtu dhex martay si ay nabaddu haddaba ay u taabagasho, xalkuna uu u noqdo mid waara. waxaa gogosha lagu gunaanadi jiray guur iyo gabdho la isa siiyo si ay sariigta xididka iyo xigaaluhu u tirtirto cuqdada kala dhex gashay colaadaha sokeeye dadka ay dhex martay. culimmada Soomaaliyeed oo weligood hormuud ka ahaan jiray dhaqanka iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan ah in ay kaalintooda ay weligood ciyaari jireen ka ciyaaraan midaynta ummadda Soomaaliyeed. waxaa saaran mas-uuliyad ballaaran oo weliba ka saaran isku soo dhoweynta bulshada, daaweynta cudurrada kala irdeeyey bulshada sida qabyaaladda, musuqa iyo eexda, iyaga oo ku daraya waajibaadkooda dacwiga. abwaan Soomaaliyeed ayaa yidhi inay nabaddu door tahay ayaan la isku diidayn, waa qodob daruuriya qofkii daacada garane, deganaansho meeshii ilebaa darajo taallaay, nabad baa dagaal iyo ka wacan dirir colaadeede, nabad baa dalkeenniyo u roon danaha Soomaali, nabad baa ninkii doona uu dib ugu aayaay, nabad baa dadkoo wada dhaqmiyo daris wanaaggeed leh, nabad baa daraaddeed dhibli'i dabac ku maashaay. haddaba si loo helo dhab u heshiisiin taabagal ah kuna taagan sal adag, waxaan ballan qaadaynaa: 1. dhayidda iyo daaweynta nabarradii iyo gocoshooyinkii ka dhashay colaadihii sokeeye iyo qaran burburkeennii, iyadoo ay ku dheehan tahay garowshiyo isdhaafsiga wixii dadka kala gaaray si aan u hiigsanno mustaqbal aan wada leenahay. 2. xalinta khilaafaadka taagan ee ku salaysan kala shakiga, kalsooni la'aanta bulshada dhexdeeda ah iyo cabsida ku qotonta suurtagalnimada soo noqoshada wixii dhib ahaa ee horay u dhacay, oo dadka aad mooddo marar badan runtii inay dhagaha u taagayaan oo ay u diyaarsan yihiin inay maqlaan khilaaf oo su'aalaha kugu imaanayaan marar badan ay noqon karaan: goormaad iskhilaafi doontaan? 3. dhisidda nidaam cadaaladeed oo wada gaara bulshada Soomaaliyeed kuna dhisan u sinaanshaha xuquuqaha iyo waajibaadka qarankeena. waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo dhaqamada wanaagsan ee maalmo dhow aan ka arkaynay gobollada qaarkood, kaasoo ahaa geel 30 sano in ka badan
كهر لكلا دعي إن مانتا ليسو عليو وأرين كدايشة مدن runtii lana dhihi karo waxay bilow u tahay hirgelinta qorshaha dib u heshiisiinta bulshadeen dawladda Soomaaliyeed waxay hormuud ka tahay dokumentka ugu weyn ee dad ummadda ay ku heshiiso ee siyaasadeed oo ah dastuurka marka dastuurkeenu waa heshiis bulsho wuxuuna runtii qorayaa wixii la isku hayay siyaasad awoodo wixii oo dhan in lagu heshiiyo ayuu qorayaa waxaan sameeynay dastuurka options bay dadkeenu sameeyeen inagoo kaashanayna beesha caalamka option 1 2 3 waxaynu u baahnayn in siyaasiyiintu ay optionskaas kala xushaan oo yiraahdaan keeba fiican ma kana roon mise kana fiican mise kana fiican waa bisil yahay waa la soo diyaariyay waxay u baahan tahay kaliya wuxuu joogaa xilligii decision la qaadan lahaa dadkii qaadan lahaana waa u jeedaan inay qaateen oo ay soo kala ay doorteen wixii ayaga la qumanaa meesha ugu dambaysa ee wax ku soo ururayaanna waa golaha shacabka iyo aqalka sare oo shacabka matalaya oo deedna ayagu go'aanka ugu dambeeya iska leh waxaad ogtihiin in anaga NCC go'aankii ay soo gaartay in la soo baarlamaanka la keenay baarlamaankuna ay in fara badan bedeleen sidii aan anagu u soo gaarnay si ka duwan ay u dhigeen waan ku qanacsanahay waan ku kalsoonahay waa dhici kartaa inaan anaga si kala nala qumanayd laakiin de waa hay'adihii xaq u lahaa waa hay'adii xaq u lahayd ayaga ayaa iska leh sida ay u dhigaan ayagoo shacabka matalaya annaguna waa ku qasbanahay in aan ku waafaqno kana shaqeyno wixii ay dhaheen halaga shaqeeyo runtii waxaa naga go'an oo dawladda federaalka ka go'an in aan ku socono mabda'a ah Soomaali heshiis oo ay madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliyeed ay mar walba isla jaan qaadaan annagu waxaan la cararayna ma jirto taladu wayna dhex taallaa waa keenna waa laga hadlaa waa laga doodaa dadna marka ugu dambaysa dhinac baa la isu raacaa waxaan shaki ku jirin hadda dadku markii ay isu yimaadaan hal qalbi ma wada laha waa la iskhilaafi karaa waa la kala ra'yi duwanaan karaa laakiin platform baan leenahay wax alla wixii anigu aan kaga duwanahay walaalahayga kale platformka inaan keeno waa inaan doodayda soo dhigtaa waa inaan sidaan wax u arka cadeeyaa aniga oo ka fayow dan gaara waa inaan dawladda Soomaaliyeed haddaan matalayo guud ahaan iyo haddii aan state-ka matalayo gaar ahaan waa in aysan ku qotamin doodaydu shakhsiyadayda aniga haddii taa laga fayoobaado oo aniga ta igu wareegaysa aan ka dhex baxno waxaan ballan qaadayaa oo aan guarantee gareynayaa dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta inay waxba isku diideen markay timaado danta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ummadda Soomaaliyeed markay timaado haddaad annaga hadiiba wuxuun qayla soo yeelo waxaan meesha ku jirin baan ku joojobayna waxaan meesha ku jirin joojobaynaana waa dantayda aniga shakhsiga iyo danta hebel ee shakhsiga waay aan ka saaro danta hebel laakiin dan Soomaaliyeed markaan isugu nimaadno waa heshiinaynaa doodna kuma jirtaba ta shakhsiga lafteeda aan diyaar u nahay inaan maarayno laakiin waxaan ku maaraynaynaa dallaankii dharabtaada oo galbaa la sitaayay horta platformkaan isugu imaan ayada lafteeda aan diyaar u nahay inaan maarayno laakiin waa inaynu isu nimaadno waa inaynaan caasimado kala aadin waa inaynaan meelo kale aan laynooga gacan haadin waa inaynaan meelo kale oo aan danteennu ku jirin inaan laynooga gacan haadin waayo jabkeenu wuxuu imaadaa markaan jabkaaga dhabtii wuxuu imaanayaa markaad walaalkaa ka tagto ee aad meel kale aad aadood wada garanaysaan idin kulligii horey baynu u aadnay saraakiisheenii baa aaday generaaladeenii baa aaday ganacsatadeenii baa aaday dadkeennii baa aaday xaggeen aadnay markii dambe xaggeyna la tagtay waxaan ku baaqaynaa on dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ugu baaqaynaa
oon madaxda dowlad goboleedyada leeyahay oo aan siyaasiyada Soomaaliyeed leeyahay dhammaantood wixii gaar inoo ah ee qofka shakhsiga gaar u ah ee maslaxad gaar u ah siyaabaha loo maareeyo oo aan isugu imaanayno inagu aan u maarayno laakiin yeyna isku dhex qooshin biyo iyo dab yeyna isku darin yaan la isku dhex qooshin danaha gaarka ah ee adiga leedahay qofka shakhsiga ah iyo danaha qaranka deedna yaan cinwaan la soo dhigin danta qaranka ama danta state-ka ama danta dadka deedna hoosta waxa kaga jirana waxa waaye باطن يوسن حوست كجتشنا هذا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يسنقون سياسيين توحن كرمنا أن لقيا بيرسن حلال هين أما مذا حراهي دلقات وضيت النمو إيوه إن أي هل حبك قنعان أنا ما قرينا إنه بين كم شيء إنه كنت الشيء إنه وإنه عضهاي وأنكو شقينا إنه teendha dambe Soomaali la iskuma dooranayo tasriix qofkii raba in walaalkii raba inay wixii hore iyo teendhadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabad dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd mas'uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxa Ilaahay nagu xisaabtamaya inaan Soomaaliya meeshii ku celin marka cidii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lugjiidaysa waxaan leeyahay rajal laga ma qabo meesha kuma noqonayno walaalow waa mahadsantahay hor soo soco fursad ka fiican ku haynaa fursad kaaga fiican ma ku haynaa oo maxay tahay horta dalka waa ku xoreynayna hadii Ilaahay yiraahdo oo adoo dhul nabada oo aad sharaf iyo karaamo ku leedahay ayaad insha Allah u soo diyaar garoobi doontaa waa qodobka labaad walaalow waxaan ku haynaa bulshadaada soo dhaxgal xisbi samayso ka shaqayso political party weyn samayso ku yar samayso isu wada tago coalition samaysta dhammaantiin u soo diyaar garooba dadkiina inaad dib ugu laabataan si xor ah oo xalaal ah aad wax u weydiisataan deedna haddii la idin doorto idinkoo sharaf leh oo karaamadaad wada hogaaminaysaan dhammaanteen taasaan runtii ayaan idinka haynaa laakiin tii aan lagu faraxsanayn doorashadii 51 qof 101 qof oo meel la geliyay oo hal qof go'aan ka soo gaarayo anigu waxaan ku jiray dadkii halka qof ee go'aan ka soo gaaray oo isoo siiyay kursiga bari oo lagu soo guuleystay laakiin mid qof hal qof kaliya go'aankiisa ku xiran hal qof kaliya go'aankiisa ku xiran oo waliba in badan oo kamid ah dadka hadda mas'uuliyiinta siyaasiyiinta ah ay dhibaato badan ka soo gaadhay oo og yihiin waxaan leenahay wartii haynagu celinina waana is ogeyn markii mucaaradka la wadahay banaanka la joogayo dhibka ay arinta inagu haysay waan wada fahamsanahay go'aanku wuxuu wada ahaa aan isla gaadnay ee la isla ogaa dastuurka aan wada dhamayno waxaan u maleynayaa bulshada Soomaaliyeed waa la wada sheegay doorasho codiyo qof yaa la gaadaya halkaas la aadaya meeshan lagu ma soo noqonayo taasna bulshada Soomaaliyeed dhagahoodu way wada maqleen oo way wada haystaan kulligeed ballanqaad guud oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo waajibaad saaran ilaa maanta saaran waaye intii u baan anaguna ka shaqeynaynaa waxaan rajaynaynaa inaad nagu gacansiisaan inagoo walaalo ah oo haddaan qaldannahay wixii qalada naga celinaysaan oo haddii aan saxsannahay dee watacaawanu cala albirri wattaqwa wixii fiican in la isku caawiyaa waajib ah laakiin wixii fiican in la diido ama la hor istaago runtii ma qurux badna marka waxaan ku soo gabagabeynayaa mushkiladaha waaweyn iyo cudurrada aan ka qaadnay dhibaatadii 30 sano ka badan soo socotay ee khilaafka iyo dagaalka iyo mushkilada ah ee cudurka oo dhibaatada ugu weyn
waxaa waaye in ay dadkeenu la qabsadeen khilaafka. dadkeenu waxay iskala qabsadeen khilaafka iyo in dadku ay mar walba is haystaan. marka haddii ay madaxdu iskhilaafi weydo macnaheedu waxaa weeye xukuumadii ma jirto, madaxweynaha iska haysta wax oo dhan, wax ka jira ma leh. waa meel aan dhaqaaq lahayn, waa meel inkaari ku dhacday oo lagu jabay oo hal nin uu ka taliyo. maxaa dhegta loo taagayaa oo la rabaa oo la jecel yahay? khilaaf. annagu inta tabartayada ah arrintaa ayada qofkii ku riyoonaya ama raadinayo in badan baad sugi. waxaan leeyahay dib u heshiisiinta dhabta ahi waa middaa wasaaraddu ay ku dhawaaqday, waa middaa xukuumaddu ay ku hogaaminaysa dalka, waana middaa vishinkii madaxweyne xasan sheekh uu udub dhexaadka u yahay oo ahayd Soomaali heshiis. waxaan rajaynayaa maanta intii ka shaqaynaysa halkan ay wada fadhiyaan marka aan ka shaqayno dawladnimada. taasaa aasaas u ah inaynu dib u heshiino. Xamse hadalkiisa waxaan ka dareemay hadal badan oo loo soo dhiibay. wuxuu dhahay teendhadii looma laabanayo, qofka niyadiisa taa ku jirto ma dhacayso. annaga xil baa naga saaran mas-uuliyadda. waa ogtihiin halistii horoo la galay. horta doorasho dambe inaysan dhicin xasan inuu rabo halkaasi ka caddaatay. midda kale Xamse wuxuu dhahay dadka isdagaalay colaadda waxaa lagu saari karaa in gabdho la isku guuriyo, la kala guursado oo xidid la noqdo. cuqdadii hore saaraysaa. taasna waa been. maxaa yeelay dagaalada Soomaaliya markay dhaceen gabdhaha wargeedina niman daarood oo qabay hortooda lagu kaxistay, nimankii waa la dilay. ayadoo ka dabaqaynaysa Saaliyaan ayaa har waa la reebay. qalbi dhagax hadda Itoobiya markii loo dhiibayay yaa soo qabtay gabdhaha wargeedina oo qabay, galguduud baa laga soo qabtay. kadibna ra'iisul wasaaraha Khayre iyo Sambalolsha dhiibay oo Itoobiya u dhiibay. taasna waa been kale oo xididkii hore hadduu waxtar waayay mid haddaa waxtari mayo. ra'iisul wasaaraha wuxuu kaloo yiri danaha shaqsiga iyo tan dowladda hala kala saaro. ayadana wuxuu u dan lahaad garanaysaa nin buu u dan leeyahay oo masjidka halkaa u mari la yiri. Sicdani walaalow taada ka hormari markuu leeyahay hal qof buu la hadlayaa, dadka dhan lama hadlayo. walaalow dantaada iyo tan dowladda kala hormari markuu leeyahay wuxuu u dan leeyahay waa iska muuqataa. waxa weeye Sicdani wuxuu rabaa dadku matalo iyo gobolku matalo kuraastay lahaayeen buu rabaa inuu hadlana waa sax. maxaa yeelay awoodda waa la qaybsada. xasanba waa aragtaa meel walba nin abgaal uu ka dhigo ciddiisa ah. xil walba dadkiisa u dhiibtay. adiga ra'iisul wasaaraha nin ku shaqaynaya xafiiskaaga ka shaqaynaya wuxuu yiri shaqadii ra'iisul wasaarenimada waxaa lagu qabtaa madaxtooyada. markuu iska casila xil kale aan raadsanayaa, lacag xalaan shaqaysanayaa bi ra'iisul wasaarenimadaada xor uma tihid Xamse. haddana waxaa tiri dadku waxay dhaheen nin baa meesha iska haysta. maxaa yeelay khilaaf baana naga mas-uuliyiintii sare hadday khilaaf ka dhexin waayeen dadku waxay dhaheen buu yiri Xamse nin baa xilka iska haysta. mani xasan buu ka wadaa khilaaf ma dhacayuu yiri. ana hadda idin sheegaya maxaa yeelay ninkaan nin la hela weeye. hadduuba khilaaf waxaaba dhahaa waxaas ima cuntamaan oo wax diida. qof karti leh oo dad inuu matalo og. Xamse wuxuu u qabaa xilka inuu dhiibtay
xasan kana qaadi karo reer dhan inuu matalo oo kursiga ku fadhiya reer dhan ay ugu fadhiyo ma oga. xasan inta uu joogo hadda xamse dadkii xilligii hore uu ra'iisul wasaaraha u ahaa ma aysan joogi jirin, wuu casiri jiray. maxaa yeelay xasan caqligiisa cid ku shaqayn kara, qof ku shaqayn kara caqliga xasan oo xasan ka liita ma jirto. marka nin walba is casiri jiray, laakiinse ninkaan nin wuxuu noqday la helay oo ku dambeeyay nin la helay oo hadalka loo soo dhiibo wixii ku hadal dhaw ku hadlaya kadibna aamusay. waa ninkii hadda ka hor yiri habarwacashada iska daayay, reer Khaatuum uu ku dhahay habarwacashada iska daayay, meeshuu dhihi lahaa dadkaas anaga ra'iisul wasaare u ah doqoynta laga daayo. ra'iisul wasaare ku-xigeenkiiyo Isaaqa baa hadlaya oo u hadlaya Isaaqa, isagana afka sharoota ka saaran. marka ninkan waxaan leeyahay xamsow, waxaan ku leeyahay nin la helay baa tahay oo dee marakan sida doona laga yeelayo. walow aan maqlay madaxtooyada xataa waxaa la sheegay waa loo gacan qaadaa ra'iisul wasaaraha. kale nin dhib heystaa tahay, ilaahay ha kuu fududeeyo. waan loo laabanayaa teendhadii Afisiyone, taas ku seexo kuna soo toos. barnaamijka halkaasaan u baxaya. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.